khudbadeenu waxay ka waramaysaa sida dareemayseen akhlaaqda wanaagsan ya akhlaaqda xun oo la diiday akhlaaqda wanaagsan oo la isfaray ya akhlaaqda xun oo la isu diiday si gaar ah dhibaatada ay leedahay akhlaaqda xun iyo ummadaha sida ay u baabiiso waxa kamid ah xishood la'aanta iyo isqaawinta iyo cawrada iyo ceebto la daawado la arko iyo iyadoo casri loo qaato lagu faano maalmahan dambe waxaynu maqlaynaa show baa la dhigayaa meel heblaayo lacag aad u badanna waa lagu bixinayaa oo dadku juwanada ay ku goosanayaan dhalinyaraduna aad bay u xiisaynaysa waana lagu soo xoomaya xaragana waa laga daraya xumaantiina halkaa gaadhay marka waxaynu baraarujin lahayn xukm alghinaa'i fi lislaam وأنه محرم شرعا هاسها إيه ميوسيقى لا يسكو قراعي دادك لغو سو تشيداني مسرحية إيه فقارها لكيني بل محاي شريعاتو كقبطاه لأنك وحي حكومة كتابك إلهي إيه سنها الرسول صلى الله عليه وسلم marka wixii xalaalana waynu hoggaansan wixii xaaraanana waynu ka feejigan marka aynu eegno aayadaha quraanka ah waxay soo horeysiin leen aayada suuratu luqmaan sidaynu xagga dambe ka sheegi doono sababtay ku soo degtayna ay culimadu ku tilmaameen heesihii ninkii gaalka ahaa Nadr ibn al-Harith la oran jiray oo tirin jiray ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين dadka waxa kamid ah wilaay qaar iibsanaya war liito bila macna si uu dadka uga lumiyo dariiqa xaqa diintiyo dariiqi xaqaana uga dhigto mid lagu dheeleero dadka noocaas ah sida u dhaqmaa cadaab duleeyay leeyay buulahay علماء التفسير markay sharxayaan iyo asxaabtuba ibn Abbas wuxuu leeyahay ardaygiisa mujaahid huwa al-ghinaa wa tib wa durbank qalabka la isku garaacayo iyo bahasha heestiya waxa lagu garaacayo Hasan al-Basri waxa uu leeyahay nazalat hadhihi al-ayatu fi al-ghinaa wal mazamir ayadani waxay ku soo degtay heesaha iyo qalabka lagu garaaco tafsiir ibn Kathir sida uu sheekhu ku soo warinay أبو السهباء وحاول الله عبد الله بن مسعود بن ويدي عن تفسير هذه الآية آية تفسير كيف أي نصاخرني عبد الله بن مسعود نوحوها أعلم الصحابة في التفسير من أعلم الصحابة أصحاب تكوى ويا قانب وكملها تفسير وواكلها هدية أن وقال لها عيد تفسير كي قد تقالنا وأنرح ليس لها أما صفر بانو قال لها حقيس وحول الله والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاثة صدح جرب كدارت إله حق لقو عابدين إله كالتشرين آيات وحا يكور رمي سواها يسها واها يسها بقعد عليه تفسير كأصحاب تنوى علم التفسير شيء وصور ريوي حيث إنهم حضروا التنزيل حضروا الرسول وعاصروا التنزيل قرآن كيو سودة أي النبي محمد لفرديان marka aayada waxa lagu fasiray iyaga ugu yaqaan aayada labaad ee culimadu ay u daliishadaan heesu inay xaraan yihiin waxa weeye ilaahay waxa uu wastafsiz bi sawtika man istata'ta minhum bi sawti واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد waxaad ku duufsataa oo aad kiciniya baabul ku samaysaa dadka ku kaxaysataa shaydaanow codkaaga iyo gaadiidkaaga iyo ciidankaaga lugta ah intaba isku kiciyo dad iyo duunyana la wadaag bani aadamka oo meesha doonaysa kala dhacwaan ku sii daayay ka iska ka caliyay ka kalun baa la eegaya dadku way kugu imtixaanay culimada tafsiir marka ay fasirayaan aayada waxa ay leeyihiin sida jalaalaynka ku xusan bidu'aaika bil ghinaa'i wal mazamir codka la sheegaya shaydaan waa codka heesaha iyo qalabka lagu garaacayo nooca qurtubi aayada marka uu fasirayo waxa uu leeyahay fil aayati ma yadullu ala tahrim al mazamir wal ghinaa'i wal lahw wama kana min sawti ash-shaytan aayada waxa ku sugan inay xaaraantinimaynayso diidayso heesaha
iyo codka music iyo daramanka iyo qalabka la garaacayo oo codkii shaydaanka ah waxaana waajiba inuu qofku iskaga tago daliilka saddexaad ee quraanka ku sugan ee culimadu soo qaataan waxa weeye aayadda furqaan ku sugan ee ilaahay uu walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama mu'miniintu ilaahay amaana ya cibaadu rahmaan waxa uu waa kuwa markay soo maraan shayga dambiga ah si gobannimo iyo sharaf leh u dhaafa ee aan la walaaqanin in la wadwadin wax cid waxa wada marka ibn kathir waxa uu leeyahay qaala muhammad ibn hanafiya zuru huna al-ghina inan kaasa fasiraya ali ibn abi talib wa awooga waha muhammad ibn hanafiya la yiraahdo wuxuu ku fasiray waa heesaha oo aanay banaanayn in la dhageysto markaynu quraanka soo dhaafno daliilka labaad ila daliishada waa xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam adillatu tahrim min as-sunnah daliilada marka culimadu ay u soo qaadanayaan heesu inay xaraam yihiin حق أحاديث وحا كميدا حديث كان صحيحة البخاري كسوغان يسوغا معلقة لكن حديث كوا صحيح سيدا علماء بدن أي كتغين والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ومدى يلوحك كايمان دونا وكصابحي دونا دار حراشة حريرتي رقا حاران تكاهي فرشقي آن مركا سينادا وحلو يقانو يا خمرجي يا معازفته وقلب كان له قراعها سهل فيبيتهم الله ويضع العلم أي الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة مركب بوربو انتو إلى هاي صوت شركوا ونوع عودك ما يدوشك صار الدونا قال كنتو بدلي ووحلو يقيسين دونا الضوافر هذه داير هذا مركب حديث قصيدة لبش لنعبو كتو سو حرامين ومركه هره يستحلون ابو النبي ولا way xalaashanaya macnaheedu waxa weeye shay xaraana haba xalaashanaya mid labaad ee xadiidku ka tusinayo xaraantinimada heesta uu ku tusinayo waxa weeye qarar al-mahal waxyaabi xaraanta hab la xiriir sida sinadii iyo xariirtii raga ka xaraan tahay iyo khamriga liiskaas ku daray muharramaat daliilka labaad waxa weeye nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid isaguna xasana وحول نبي وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند النغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة صوت أو رنة وحن إذا قلنا بيقول الله إلا بعض وصالح وليتاء طبعا قفكي كل قبيي ayaa dhaqanka yeelanaya mid waxa weeyaan codka lagu yeerinayo marka la garaacayo qalabkan heestiya wixii lagu garaacayay kaasu israaciy oo codka shaydaanka uu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam isaga fasiray codka labaad ee diidayeen xaraantinimeynaya waxa weeyaan uu nabiga calayhi salaatu wasalaam sawtun inda musiiba marka hadiya jeer balaayo ay dhacdo dadka baroorta dumarka barooranaya كانوا هاي أنت تريان قف كل أنت محاسن تيسية وحيابو كون أجسنا هنا قبلمين شيئا يا مركب برارته يوحو السماي هاسها هي قلب كلو قراعيو لبضبا والنهي يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهي قاسنا والتحريم حديث قصة حادث سقنا وحسن ورسول كل صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان صوت مزمار عند نغمة وصوت ويل عند مصيبة لبا صور وين عدلين أنا قفك كسو يرين بان عدلان بدي waxa weeyaan sawdka codka leh heesaha bidina waa ka dad dumarku ay barooranayaan marka laga dhinto waxa riwaaya kala ah la yakununa fi hadhihi ummati khasfun wa qadfun wa masx ummadan waxa ka soo bixi doona inuu ilaahay qaar kood dhulka la gooyo midabkooda bedelo dhagaxaana dusha kaga soo daadiya iyo duufaana iyo dabayl halaagay oo baabiinay ida sharibu al-khamra wattakhidhu al-qaynat wa darabu bil-ma'azif marka ay cabaan khamriga dumar heesa oo la daawadana samaystaan macaasiftii qalabkana ku garaacaan xadiidkaasna waa saxiix
حديث كأفراد النبي الله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على أمة الخمر والميسر